salaamu ullaahi calaykum asxaabta sharafta iyo qiimaha u saaxiibayaal soo dhowaada. Caawa waa habeen jimcaha, horta meel kastoo aad joogtaanba, inkastoo sabti soo galayso haddana dee jimca iska xisaabsan tahay, jimco wanaagsan. Wararkii ciyaarahana waxaa ka mid ah caawa, inkastoo aan caawa ciyaara jirin, laakiin waxaanu falaqayn doonaa kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxa caawa seexanaysa iyadoon hal shilin akoonka ugu jirin. Dhammaan akoomadii kooxda kubadda cagta Chelsea waxaa la wareegtay dowladda UK, mulkiilaheeda Abramovich. Dhammaan waxaa la wareegtay akoomadaasi caawa dowladda UK. Kooxdii kubadda cagta Chelsea caawa waxay seexanaysaa iyadoo xabad lacag aan haysan. Talow caawa anigu shaaha ma u shubaa raggii Chelsea ahaaye ciyaartooydii Chelsea caawa waxaan malaynayaa anigu unbaa akoonkaydan lacag ugu diri doonaan caawa u malaynayaa inaan raggii odhanayo war caawa anaa shaaha iyo cashadeeda ka bixinaye, maadaama raggii Chelsea ahaa caawa ayna shilin hayn oo ay seexanayaan iyagoo bilaa lacaga. Marka warkaasi waa biyo kama dhibcaan, ma wada awoodeen xisaabtooda ma wada awoodeen, laakiin ragga inta islaamka sida Hakim Ziyech iyo Kante iyo Sarr iyo Rudiger iyo intaasaan anu caawa cashada iyo ka bixinaya. Marka saaxiibkay Maxamed Dheelna waxaan leeyahay war ragga intaad awoodida kale ka bixi cashada. Marka aniguna caawa taasaan qaabilsanahay ilaa biri waan haynaya, wixii ka dambeeyana iyagaa soo indhaa. Intaas waa kaftankii. Marka kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa caawa waxaa la soo saaray cunaqabateyntii ugu dambeysay ayaa la saaray, iyadoo lagu xumaynayo laguna eedeynayo Abramovich uu xidhiidh dhow la leeyahay madaxweynaha Ruushka Putin, asoo weerar ku qaaday dalka Ukraine. Marka dowladda Ingiriiska caawa waxay si buuxda loo wareegtay dhammaan akoomadii ay xisaabta uga furnayd bangiyada UK. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxaa horey loo sheegay inay 26 milyan oo gini ay haysato, ay dhammaadka bishan ku eeg tahay lacagtaasi. Wixii intaa ka dambeeyana aan iska bixin doonin mushaharaadka ciyaartooyda iyo shaqaalaha. Marka kooxdii kubadda cagta Chelsea ma haysato bishan waxay ku bixiso mushaharka shaqaalaha dhammaan iyo ciyaartooydeedaba. Marka kooxdii kubadda cagta Chelsea hayd caawa ma haysato hal bas oo kaliya lacag ay shidaal ugu shubato ma haysato, dhammaan waa shid caawa. Marka kooxdii waxaan u malaynayaa caawa kooxdaasi inay rag u baahantahay waray Soomaaliya kooxda loo gurgurmado caawa. Waxaanu sameynaa u qaadhamanaa kooxda kubadda cagta Chelsea iyo ciyaartooydeeda iyo shaqaalahooda say casho iyo quraac u helaan, intii la odhan lahaa rag baa halkaa ku dhintay. aadan baynu nahay waynu ka naxanaay, rag badan oo islaamana meesha way ku jiraan. Marka bahasha iskugu soo dardaro, anaa akoonkii furaya qaadhaanka la soo aruuriyo. Marka kooxdii kubadda cagta Chelsea caawa masiibo weyn baa haysata, taasoo ka dhigin doonta inay hadday lacag weydo ama shiido inay toos ugu dhawaaqdo kooxda kubadda cagta Chelsea inay khasaartay ayna haynin wax mushahara iyo wax lacaga, taasoo marka dambe ku khasbi doonta inay dowladda UK hoos tagto iyaguna ay bixiyaan kana taageeraan wixii qarashada, taasoo ku khasbi doonta in kooxda kubadda cagta Chelsea in 9 dhibcood laga jaro, maadaama ay soo dhiibtay iskana bixin weyday una hogaansatay amarkii dowladda UK. sidoo kale wararka xagga ciyaaraha suuqa kale iibsiga kaliya waxaynu soo qaadan doonaa ciyaaryahanka PSG Dibebe, kaasoo 10 maalmood kadib go'aan ka gaari doona mustaqbalkiisa isagoo kala hadli doona kooxaha doonaya. waxaana ugu cadcad kooxda doonaysa kooxda boqortooyada Spain Real Madrid. sidoo kale waxaan meesha ka marnayn kooxaha Man City, Liverpool oo dhammaantood iyaguna doonaya ciyaartooygan. sidoo kale kooxda Barcelona ayaa iyaduna doonaysa, Bayern Munich oo kale. Marka kooxahaas ayuuna wuxuu kala hadli doonaa, maadaama kooxdii Paris Germany ay iska noqotay waxaan lacag kasta la geliyey oo si kasta loo dhaqaaleeyey oo si kasta carab lacag haysatay intay iibsatay iyada iyo Man City ba ay awoodi waayeen xataa inay maxaa la dhahaa ay koobka iyo UEFA Champions League ay qaadaan. Man City baa la qaato mar bay tagtay finaalka oo sanadkii dhaweyto waa tii laga qaaday ay ka qaaday kooxda kubadda cagta Chelsea. laakiin kooxdan Paris Germany ilaa iyo hadda waxay dhaafi laadahay 16. marka kooxdaas carab baa iska wadato, carabnada waa la yaqaanay oo carabta waa kuwii 8 loo dhiibi jiray. waxay maqli jiray bari Jarmalka ayaa wuxuu la ciyaaray Sacuudiga markaasuu 8 u dhiibay, markaas kii waryaha ku dhuftay wa nacalati kalaus wa kadalika ya balak
mise waaweyntu waxba waa qaadi la'yihiin oo championka final waa tegi kari la'yihiin marka wararkeenni intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa ilaa iyo dee berri baa sabtida kole kulan weyn baa jiro Man United iyo waxaa wada ciyaaraya Tottenham marka labadaas kooxood berri waxaan malaynay madaxa isla geli doonaan koox unbaa laga takhalusi doonaa kooxda Man United aynu ogeyn in 4 loo soo dhiibay iyo kooxda Tottenham hadda kacsanoo maalintii dhaweytana waatay Man City ka soo badiyeen nimankaas war iska jira hoy saaxiibayaal subscribe-ka iyo like-ta iyo comment-ga yaalnay yaa dhiirigelin bay noo tahay marka aad baan idin salaamaya saaxiib